baabuurta cagabadanta baabuurta iyamaha kanba waxaa lagu qabanaya qaraxyada iyo dad xataa lagu soo masheeleynayo caqaayada baabuurka iyo kuwa horey qaraxyo loogu qabtay waxaa moodaa inay caadaysteen inay qaraxyada soo geliyaan gaadiidka wadada mariyo gaadiidka waaweyn arrintaas maantana waan ka hadalnay haddana waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan inay ka dhiiranaadaan dadka u maleegaya shirqoolka qaraxyadu ka mid yihiin iyo dadka la leynayo oo koonfurta Soomaaliya laga soo daldalayo dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan in arrintaa ka diyaar garoobaan ciidamada dawladuna inay awalba diyaar bay ahaayeen ay kasii diyaar garoobaan aan ku wargelinaynaa waxaan kaloo dadka u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland arrinta moo qarax lagu qabtay ama dhibaato wado al-shabaab lagu qabtay sidii sharcigu uu qabo dawladda ayaa la wareegaysa maxkamadaana la horkeenaya ninkii hadhow gaari oranaya waa leeyahay iyo xagga yahayna dambiilo u shaqeeya al-shabaab buu noqonayaa dambiilo dadka burburinayo noqonayaa dambiilo isaga gaarigiisa wadada uga shaqeeyo inuu Puntland burburiyo ayay noqonayaan marka gaar adag baa maartay laga geysan doona hadda ka bacdi wixii ka dambeeya waa garta marka gaariga maanta la qabtay miyaa dib loo fasaxay adeer see loo fasaxay miyaa yiri waa la fasaxay lama fasaxi kare maxkamad baa la geenayaa waana lala wareegayaa sharci ayaana lagu qaadayaa isaga iyo wixii gaariga lahaa iyo wixii ka dambeeyay labadaba waa garta marka gaarigan waxaa lagu qabtay controlka Boosaaso marka Puntland control kala duwan bay leedahay sida kan gaalkacyo Garowe iyo Qardho iyo waliba deegaanada kala duwan marka qaabkee iyo marka gaadiidkan uu uga soo gudbay intaasoo control walaalow gaadiidka waxyaalo badan oo lagu soo raro oo lagu soo qariyo ayaa jira qudaarta ayaa ka mid oo waxa weeye baalada qaxyada lagu soo qariyaa oo maartay dadkuna waxay iska turaan oo ay isaga turaan in maaragtay dee qudaar halkaa laga soo qaaday rogideeda iyo kharashkeeda uu badanaya laakiin hadda ka bacdi ma ay dhacayso qudaarta xuduudda ay ka soo gashay markii Puntland soo gashay waa in lagu rago baabuurka qudaar wadana waa in dhulka la dhigo kharashka dhulka lagu dhigayana waxaa bixinaya dad kale ayaa bixinaya sababta waxa weeye waxay noqotay fitin wax maartay qudaar dadka laga ganacsanayo loo keenayo ma waa qudaar dadka lagu dhibaateynayo oo qarax iyo dhibaato lagu soo qarinayo ayayo qudaartaas marka aad iyo aad baan arrintaas looga taxadaraya hadda ka bacdi mana dhacayso qudaar intay xuduudaha koonfurta Soomaaliya ka timaada inay Puntland ka istaagalayso baabuur walba xadku uu ka soo galayaa la dhigayaa meelaha kan oo controlada ay matalan hadda ay soo dhaafeen oo ay iyagana checking guud baan ku sameynay dabagal sababta ay arrinta u ogaan waayeen sida reer Qardho ay baalka reer Boosaaso u ogaadeen kuwa kale ay soo mareen ay ogaan waayeen oo wax dabagal lagu sameynayo ama laga taxadaro controladana waa keen doona waxaan rajaynaynaa isbedel weyn in dadku arki doono oo laga qaadayo controlada iyo meelaha faraha baabuurta maraysa hadii ilaahay ka dhigo waa garta marka arrintaas iyada ah ee controladaas gaadiidkan ay ka soo gudbayaan oo controlka Booso lagu qabanayo dadku baraha bulshada aad bay uga hadlayeen marka wax tallaabo aad ka qaadaysaan mas'uuliyiinta howlahaas miyaa jira iyo sababaha arrintan iyada laga qaadayaa controlada ay soo mareen baabuurtaas oo wax lagaga qaban waayay cid kasta oo hore u joogtay tallaabo cad ayaa laga qaadayaa arrimahaas oo dhan kulli go'aamaha laga soo saaraya tallaabana laga qaadaya ma dhacayso control qarax lala dhaafay in dadkii hore u joogay ay sii joogaan hadday ilaahayna ka dhigo dib u dhici mayso taliyaasha ciidamada iyo taliyaasha qaybahana waxaan haddeerba ku wargelinaynaa aan leenahay cid kasta oo control qaraxaas soo maahay ciddii joogtay waa in xilkana laga qaado controlkana laga bedelo dad kale loo bedelo amar baanu ku bixinay arrintaasna waxa weeye